ولا لا يهاين آدم بعد لبده ذبح لكن برجع ما دام بن آدم وترمى حواء المركع على الشيء الماء وقلبه لبى دليس على لبى ما ثاني دليس ويليا قبر الإسلام ده شيء لبده كوحكتو يكون ويليا قبره أي إسويدار لسكوكو جورين يبالغ اللي بن آدم كترمى مركز قابيل وحالة دلتي قبر قرح بنيد هابيل لو وحالة دلتي قبر فول حميد بالليل markay afartoodii barbaareen weynaadeen kobceen ayuu aadam ku yiri waa hagaaga haabiilow mataanta qaabil guurso waa sida urfiga ugu ahaa shariicadoodu marka ay ahayd qaabiilow adiguna mataanta haabiil guurso marka qaabiil baa yiri may aniga ta ila dhalata qurux badano ta isaga la dhalata way fool xun tahay marka taydan guursan buu yiri yani wixii fiicanba ana igu fiican yihiin weeyaan marka aadam baa ku yiri may sharcigeena kala nooma ogolo may halka sheekada oo mareysay mufassiriinta qaar kood ay qoreen aadam alayhi salaam wuxuu tagay makku tagay dadna qaabiil iyo haabiil baa isku hadhay labadoodii baa markaa waxa isku bandhigeen ay yiraahdeen hadaba waa yahay sadaqad hal la baxno keena sadaqada laga aqbalo ha guursada gabadha quruxda badan leh إلا قابيل تيهابيل لا دلته فول حميد وسكديده inuu guursado wuxuu leeyahay anu tan mataanta ila dhalate quruxda badan leh haabiil u dhismay ana guursan buu leeyahay labadoodii marka waxa loo bandhigo la yiri sadaqad la baxa nina wuxuu ahaa beero qodaal beeruhu falan jiray oo qaabiil wuxuu ahaa nin falaaxo bidirka iyo zarac dhulka ayuu beeran jiray haabiilna wuxuu ahaa baa la yiri xoolo dhaqato kana beertiisi wixii ka soo gaay buu halka ku ururiyay kana xoolihiisi neefka ugu qurux badnaayay shishla ayuu xagga soo dhigay baa la yiri marka sadaqadaas in la aqbalana waxa lagu garanayay samada waxa ka imanaysa naartaasi marka sadaqada la aqbalay bay ku dagayso way gubayso way baabiinayso marka haabiil sadaqadii uu la baxay ayay ku soo dagtay baabiisay baa neefkii tii qaabiil meesha uu ku ururiyay شعيركي يا وحيد العنية زرعها نارتي وكسر دعي ويدي مركا قابيل بصيحنا قويري هابيل وسياد اللي أقبل وأنا اللي أقبل وياه مركا هابيل باكويري ولالكي ده إلى هيدتك الله كعبس قالوا صدقات ده كأقبل أبودي ده وان كدلي ده أذا كوت الله يبودي لكن أنا جو حداد أذا جو قعنت إيه صوف دي سد أنا كقعنت إذا كو قاضي ميه بكيري ده واكدلي مركا قرآن كلا هيك وشيء فقتله فأصبح من النادمين وحلي وحب بني آذن حق درر لو قد له أورن إلى قيامها إن آذن كهور ديق دادي ديق وجوهر حق درر نك قد دادي قابل بها دم بيسقون كل يا واحد بني آذن حق درر ديق لو قد له أورن دم بيجانا محوك هذا شيء أو محوك هذا شيء حسد كنا ما أقول شريعة الإسلام حسد هو معي هدي الله معنا يا واحد كده قنتاي إله النعمة هبل آتسيس وما قلمه ما حد سيس ما إله هبل مركا كأركت في عنته دم بيجا حسد كل جولية حسد كمركا دم وحو جاي إنه قابيل ولالكي وكل جرون لذلك ذاتك بايع مشتركة صفات حسد كوين كفوا قدام كيشلي سوق السوق قال يبغى لقيه بينه كل دافع ذيك هاي سورة صدوق يدافع عنك إلهي بقى أقرأ ديسك يا أقرأ إلهي لأن الرزق هو منقسم والله غيبي الدنيا ده اللي قمت ترتمي الدين ده اللي قمت ترتمى خصلتان من كانت فيه كتبه الله شاكرا صابرا ومن لم تكون فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا لبا خصلدود قفك نولشيسا اي كميتا هاي كجرتو الهي ليسك الشاكرين الصابرين ايو كدرا من نظر الى دينه من هو فوقه فاقتدى به ومن نظر الى دنياه الى من هو ادنى منه نيكا مركي دين نقطه ككسريا ايغا اي كديدا الدنيا مركي نقطنا ايغا ككهوسيا ee nicmada ilaahay isaga uu siiyo hoos u eegay ku shukriya
labadaa khasladood nin kale baa la yidhi ilaahay jalla wacala wuxuu ku daraa shaakiriinta iyo saabiriinta marka in adduunyo layskaga daydo oo walaalka adduunyo lagula tartamo oo adduunyada lagu xasdo lama ogolo waxa la ogol yahay in qofka diinta lagula tartamo ka diin fiican baa la eegaa deedna waa lagu daydaa yaa la yidhi waa lagu daydaa salaada shada waqti waad u tukanaysaa waad baxaysaa laakiin ninka sunnaha ku daraya eego bisha ramadaan baad adigu soomaysaa sunno kale ma soontid ninka shawaalka ku daraya eego ku dayo acmaal baa loo baahan yahay lagu tartamee ashyaa in lagu tartamo maaha mid walba arsaaqada ilaahay intuu qoray buu helayaa in kaloo ziyaada ma helayo kasbiga arsaaqada iskuma xidhno dad baa kaa shaqo badan adiga laakiin kaa dakhli yar nin baa adiga kaa shaqo yar laakiin kaa dakhli badan kuuligu subaxda 6 subaxnimo shaqadu bilaabo ayuu 6 maqribka ka soo dhaadhacaa isagoo naftiisu ay nafba ku jirinba waxa uu qaadanayaa wax yar oo la yiraahdo $15 ama $10 laakiin injineeradu ka warrama maxay shaqeeyaan injineerku ma soo shaqeyn saacad laba saacadood waliba xafiis qabow ku shaqeyn xafiis qabow oo biyihii u yaaleen oo halkan shaahi u yaalo oo ku sheekaynayo laba saddex saaco shaqeyn waxa laga yaabaa $100,000 inuu qaato maaha qalinka wuxuu ku helay arsaaqada may waa u qornayd imsa ka aqoon badan oo xaafadaha fadhido walwalan dadka inta shaqeynaysa kala haysa iyo inta qalada fadhida cunaysa ma badan ya bal dumarku may shaqeeyaan may hadana way cunaan oo inaga qurux badan yihiin ubadku may shaqeeyaan may hadana way cunaan oo inaga qurux badan yihiin waayeeladu may shaqeeyaan may hadana way cunaan oo way cabaan dadka walwalan may shaqeeyaan may hadana way cunaan way cabaan dadka jeelasha ku xidhan may shaqeeyaan may hadana way cunaan way cabaan dadka inta shaqeynaysa 10% maaha 9 kalena way cuntaa marka walaalkaaga muslimka hadii ilaahay uu ka dhigay mid adiga kaaga horeeya xagga adduunyada war adduunyada qofka lagu lama tartamo waxa lagu la tartamo qofka aakhirada lagu la tartamo